Senator Hussein Ali Haji oo kumid ah senatarada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wayba sugeeyay xambaliyo sandaray madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen soona baagan dari madaxda iyo shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya inta si adag iyo la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa ku senator Hussein oo xambaliyo madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed bismillaah marka ugu horeyso waxaan hambaliyo u dirayaa madaxweynaha cusub maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne mar labaad waxaan ku leeyahay hambaliyo sidoo kale waxaan hambaliyo u dirayaa xildhibaanada Koonfur Galbeed oo ka jawaabay rabitaanka shacabka oo u doortay madaxweyne daacad u ah danta dalka iyo dadka iyo diintaba markaas mar kale waxaan u mahadcelinayaa kusamihii madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka mudane Abdulqaadir Shariif Sheekuna Maye iyo guddiga doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aad ugu shaqeeyay inay doorashadan u dhacdo sida xor iyo xalaal ah waxaan kale oo u mahadcelinayaa dhammaan shacabweynaha Koonfur Galbeed sida ay u garab istaageen madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen doorashada ka dhacday magaalada Baydhabo waa doorasho xor iyo xalaal ah oo anigu aan goobjoog ka ahaa waxaan kale oo goobjoog ka ah xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan iyo international community iyo kulli daneeyaasha Koonfur Galbeed waxay yeelatay madaxweyne daacad u ah dadka shacabka madaxweynuhu waxa ku leeyahay hor u soco shacabweynahayga dhammaan siyaasiyiintaada qof walba waa ku garab taagan yahay waana kula shaqeynaynaa insha Allah waxaan rabaa mar kale inaan u hambaliyeeyo shacabweynaha Soomaaliya oo dhammaantood hambaliyo iyo macna ii sheegay bogaadin soo diray ilaa ay xali oo aad u daneynay in macna ii sheegay dawladnimada iyo dhammaan dadka dawladnimo jecel aniga mar labaad iyo mar saddexaad waxaa soo dhameynaya madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaan ku leeyahay mudane mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow waxaad madaxweyne u noqotay shacabkaaga oo aad ku jecel senator Hussein iyo wayba sidiran ka xambaliyay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen wuxuuna la dardaarmay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya intuu sidiran ka shaqeeyay danaha shacabka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibrahim Macalimow TV-ga caalamiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo